Yaasir Maxamed Sirin oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Minnesota. Doorashadan oo ah mid ahmiyad gaar ah asaga u leh waxa uu sheegay inuu rabo inuu wax ka bedelo siyaasadda dalkan kadib markii doorashadii 2016kiina xagga takoorka diimaha iyo sidoo kale kala qaybsanaanta bulshadana uu aad u dareemay. walaal waxa uu codeeyay sababta uu codeeyay early voting ama si dhaqsi ah waa koow in maxaa la dhahaa Soomaalida kale ee gobolkan aan wada degno inuu ku dhiirigeliyo inay codeeyaan waa taqaana wala socotaa sanadkan midtermka waa yani waxay maraysaa siyaasadda dalka Mareykanka heer xasaasi ah waxaa jiro dad xisbiga Republicanka magacooda ku tartamaayo gobolkan ka wado maxaa la dhahaa kala fogeynaya dadkooda dego ee muslimiinta ah iyagoo qaarkood platformka ku cararayaan ama ay ku tartamayaan ay yihiin mid yani dad hayso maxaa la dhahaa islaan nacib ay ku jiro marka waxaas anigoo dhibsaday sidaas darteed ayaan u codeeyay si dhaqsi leh si macnaha xisbiga aan ka tirsanahay dimuqraadiga ugu guuleystay Minnesota. Ma ahan oo kaliya Minnesota ee sidoo kaleeto gobolada kale ee Soomaalidu ay degan yihiin ayaa waxa ka sii bilowday codeynta waqtiga sii horeeya gobolka Ohio magaalada Columbus oo Soomaalidu sidaas si lamida ay ku nool yihiin halkaasi doorashada gobernatooraha gobolka kan Congress-ka iyo xubno kaleetaba dadku way u safteen sidoo kaleeto ahmiyad iyo xiiso gaar ah ay qaxootigu sidaas si lamida u tahay doorashadan mid ay u xiiseenayaan gaar ahaan Soomaalida oo iyagu sheegay waqtigan in ay tahay marka kaliya oo codkooda uu wax badan bedeli karo sida ay leedahay Sawda Xuseen Maxamuud oo iyadu kamid ah dadka ka howlgala mid kamida hay'adaha dib u dejinta u sameeya dadka qaxootiga Sawda waxa ay sheegtay inay soo codeysay shalay galab codeyntii ugu horeysay ee abidba dalkan Mareykanka ee ku codeyso gobolka Ohio. والله زهرة عادي أنا وفرحتنا إن العيب عدين تكقيقاته كسر هرت معلم كدورشة officially أي تهاي نحن بيشكوي طبنا لكن سببت هاد وصي دورت وحيهات early voting أما عدين تقيقته هراء ما دام ضد إنسان عاد وبدنين ومدة بدنا هاي ستة وعاد كفكرت في العدي ربتيد قبل كانوا هاي عندنا هاي عدين وين هاد وحيهات قدوميها قبل كورها أي حل كيسي وحأشر رحاني dimuqraadi iyo republicanka sida ogtahayna dad badan oo qaxooti oo ay Soomaali aad ugu badan yihiin ayaa gobolkan degan sidoo kale senatarada ayaa ayagana sanadan tartamayay waxaana